Soomaali Sheekh Saciid ku soo dhaw mar kale barnaamijka ugu horeyntii waxaan jeclaa inaad bal taariikhdaada maadaama Soomaalida in badan oo kamid ah in aad ku aqoonin waa inta dabcan waaweyn ama wadanka ku haray inaad taariikhdaada wax yar noo faahfaahiso بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxay aniga kan sharaf in dadka Soomaaliyeed aan maanta la hadlo anoo isticmaalayo wasiilad Somali Channel dadka Soomaaliyeed inta badan waxay moodaan inaan af Soomaaliga ku hadal inaan af Soomaaliga aqoonin meelo fara badan waaba la tuhmaa xirda horta ninka af Soomaaliga ma ku xaman karaan sawaynu iska eegnaa ninka in anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya waxaan ku dhashay tuulo yar oo hawdka ku taala oo la yiraahdo Gocondhaale in marka inta badan markaanu dadka reer Jabuutiga aan u muxaadareynayo ama xitaa dad fara badan oo xamar ka yimi in isma afahmno way intayda yari waa in yaro geel jir ah way miibanu ku dhalanay miibanu af Soomaaliga ka soo qaadanay marka inteeran haysta waa in yaro intii geel jiraha geela lagu raaci jiray marka midhaha aan leeyahay iyo markan weer tuuro ama aan mahmah soo qabsado dad fara badan baa laga yaabaa inay leeyihiin waniyo toloma Ingiriisiye wax isku qaldaya af Soomaali in markaan tuulaas ku dhashay tuulada markii aan ku dhashayna Ilaahay wuxuu qadiray marka anoo ilmo yar inay hooyo dhimato oo marka in anako caruuro biya shan jir iyo wax u dhow aniga iyo afar yar baan ahayn marka waxa la yiri balde cidi u tola kala qaatan caruurta marka aniga inaan waxa naloo diray Sacuudiga halkan markaan Carabidan ku bartay iskuulkana ka bilaabay in markii ay dagaaladu dhaceena anoo marka form 8 waxa marka iskuulkiga harsan yahay adigu ilaa 4 sano 5 sanadood baa iskuulkiga harsanaa ayay dagaaladii dhaceen in Soomaalida marka la eriyaday Soomaalidii Sacuudiga deganeeyde kuwii sharciga ku lahaa iyo kuwii iqaamada ku lahaa iyo kuwii tuugada ku joogayba marka waxaanu gaarnay qaraar oo reerku waxay qaraar gaadeen inaanoo ilmo yara qurbaha lay diro waxa la yiri in de orodo bal dhaqaaq wadankii meel lagu noqdaa ma jiro oo waxay hayd waan garanayaayo 1989 bay November 27 marka diyaarad baa la saaray diyaaradii markii la saaray in Suuriyan joogay week ka bacdina waxaan ku degay ka dhoofay Dimashq ilaa Toronto waxaan xasuusanayo oo runtii ka yaabiyay ninkii immigration officer-ka u ahaa meesha joogay inuu arkay ilmo yaro kaligiis ka socda marka wuxuu yiri gabadh baahay waxay igu tiri yaa kula socda marka waxaan ku yiri cidina ilama socdo marka goor dambe ayaan soo galay magaalada Toronto Canada ku taala marka wadanka Canada inaan maqlay mooyaane xitaa caalamkoodu caynku uu eegyahay in dadka degani waxay yihiin macadaanba inta dushan ka raay laakiin kalarka wadanka iyo caalanka wadanka iyo kalarkiisa iyo ma hubo mana garanayo markaas subax in Soomaaliyana taano ilmo yaran ka imi Sacuudigana reerkii aan la joogay reer taabiciyad lebay ahaayeen oo sharciga leh hadii goor waxa caada marka dadkii Sacuudiyiinta Soomaalida ahayd inay Soomaalida kale iska fogeeyaan anaga Sacuudiyiin baanu nahay in arrimo yaro ay qarqarinayeen meesha ay ku jirto annakii marka Soomaalida wana laga fogay waxaan ugu dhacay marka af Soomaaligi intii yareeda aanu aanu ka baranay miyiga mooyaane horta mu kobcin oo af Soomaaliga musiibadanino kelmado waaweyn iyo mahmaha waaweyn iyo waxde dad ku hadlaan marka maanu garanaynin Carabida la qabsan marka anigu xitaa markaan la hadlay dadka af Carabeedka
ayaan marka hore ku horreysiiya inaan maskaxdayda kusii turjumo marka hadhowna ama ingiriisi aan u bedelo ama aan soomaali u bedelo marka wax la qorayo waa in carabida marka hore ku qora hadhowban marka anugu bedashaa luuqadii marka asaasiga ahayd waxay noo noqotay luuqadii dee aanu kusoo lagu soo ababiyey ee lagu soo koriyey waa xaqiiqadii waxaa odhan karaa waa luuqadiina lagu canqariyey waa anagu dee wax kale maanu garanayn markii aan tegay Canada Soomaaligii intii yaradaan sii hayana dee in yar buu noqdayo runtii iska aasan carabidana ciidanagulama hadlaynin Canada markaanu galayna ingiriisu mana loo bilaa marka gabadhii waxay igu tiri orado caawa meel baanu ku geynaynaa iska seexo berrito ayaanu ku keenaynaa qof Soomaaliyeed oo ku turjuma ciladii marka waxay noqotay aniga iyo ninkii Soomaaliga ahaa ciidino kala turjumi lahayd ilaa labadii nin oo isfaham waayay marka ninkii baan Soomaaligii marka waxaan ku wari war ma Soomaali baat waana la sugaya marka moogtay marka asaas iyagu waxaan ahay Jamaican af Soomaaliga bartay waan rumaysan daxad bigan lagu ku ciyaaray nin Jamaican af Soomaaliga bartay ayaan ahaa buu yiri markaasa waxa iga yaabiyey runtii markii dambe way Soomaalidu ka sii fogaaday waxa iga yaabiyey markii aan tagay ka dhoofay Sacuudiga war xagad maqaxi aan u joogo meel magaalada la yiraahdo Jidda ayaan xagga tagaysanin bay buu yiri Canada ku socda Allah tallaay buu waa nin reer hebela Canada jooge numberkiisa hoob buu yiri number marka ay qoran numberka yar baad haysataa halka duluc ayaan gashay ma sha Allah waxaan sii kaalumi sax numberkiiba la soo baxay damarin Canada ka soo degay lacag $9 baan haysa geebigeedo waan la soo dego numberkiibaan mid meesha joogay ii sarrifayo 4 quarter buu siiyo 4 tiibaan ku dhuftay ninkii waan xasuusan wadi hello telefoonka qaaday war hebel baa haa hebel ma tahay hebel oo halka joogo magaalada joogo oo qaxida joogo baa numberkaaga isoo siiyay haye wuxuu markaa ninkana wuu i garanay inaan iska cali cabdo aan ahay oo aanan dhaqan kala garanaynin waan Soomaaligu adag yahay oo reerahan iyo waxaana aanan kala aqoonin wuxuu igu qoray ninku waa adigu reer hebel baatay Saciido صح ninkana reer hebel ma laakiin waa isu dhowdiin waa de waa reeraha صح marka anigu waxaan u haystaa nin qurba jooga baan ahay Sacuudigana waxa nidaam baan lahayno xitaa guriyo ayaa dadka dadweynaha loo kireen jiray oo kaboolayaasha la oran jiray ninka wadanka soo galay Sacuudiga ee Soomaaliya ka yimaadee bilaa shaqada ee afki aan garanaynin lacag haysanin war guriga ha la geeyo ayaa la oran jiray dadweynaha waa kaboolayaasha kaboolaha ku tolama kaboole laakiin kaboole uu bixiyeeno marka guriga soo gashid halkaas saarada kaba farabadan kabadan baa taxnaan jiray waxaan isla marka mabda waa sidii oo Canada marka tagtid de kaboolayaashii ma u tagi doontaa inta lagu meelaynayo ninkii baan ku dhuftay war hebel nin reer hebel baan haybaan marka warqadu way qorantay iminka wadanka soo galay deebal soo doona wuxuu igu jawaabay de anigu reer hebel ma yihiin oo reerihiina doono waa markii horta qabiilan ka qoostay markan qabiilka uu kaadiye baashan qabiilka horta ma hagaagsana waayo daado ilma yara oo xitaa Sacuudiga waxa jira waxaan rado ibtidaa'iyada iyo waxaan rado mutawassit iyo thanawiyada high schoolkii maan galinba mutawassidna sanad baan ka qaatay laba sanad baan laga soo bootay runtii ninkan oo kan igu yiri Jamaican af Soomaali bartabaanay كان له حكومة كي ترجمة يقول جمايكا مريم صومالي برتي كاو عتنا حكومة ريرين مير ريرين كلا ريرين ميه ورميشن عجيب كوام وضنا عجيب يعني شو و مركي دقالت عينه والله يسحيستا واحد عين مركا إنما سي نمبر كود يقول إنما لا سوى حسوتي هنا دونو إنما دي بان قراعي لبا إنه حسن لا يلاحظه أي إيمي إلى خير كسي يسوي وناكسن بيسوء لويا ورد قبل يمن قريش وغيابت
ilmaha yar meesha keligii socda labadina way ii yimaadeen soo noqo maxkamad baad leedahay baa laygu yidhi labadiiba nin baa ii yimi gurigii bay dejiyeen kabacdi markay dejiyeen maxkamaddii markay aan soo noqday muddo gaaban weeye hadda markaa dadku waxay sugaan sannadayo ayaa looyarkii aniga markaa lay qabtay iyo in kii maxkamadda ka socday aan garanaya oday talyaani buu ahaa aniga looyarkaygiyo cad oo nin cadna da suurad telefisyon marka arki jira marka odaygiiba halkaas soo fadhiso naga raaliho baa laygu yidhi halkaasaa la isla yara tegay way wada hadleeno way soo noqdeen 15 minute ayaan fadhiyaa waxay dhaheen qaraar waxaanu gaadhnay ilmo yar baa tahay oo biyo ah ana runtii waan sheegay waxaan ku idhi Soomaaliya waan ku dhashay Sacuudigana intaasaan joogay Soomaalida wax iga weydiis ma garan maayo qaraar baanu gaadhnay bay dhahdeen marka inaanu sharci ku siino orada iska tag sharcigii baa warqad baa leeyahay waan soo noqday waxaan magaaladan weyni igu weynaatay runtii tuulo yar ayaan tagay tuulo yar ayaan kamida oo Canada kamida magaceeda maxsan ka dhac ha Welland baa la dhahaa Welland Ontario Welland markii aan tagay horta Welland madoobi ma joogo ana ka madoob meesha wala Jamaican ka xitaa ma joogo waa wada beerale mala 45,000 oo qof baa degan magaalada waa wada cadaan iskuulka man saxaadari waxa ku fiican Canada markaad qaxoonti tahayd soo gashay waxa yaro caayar baa lagu qoraya ay dhiibaan soo qaatay meel baan tagay nin baa soo kaxaystay ka soo kaxaystay hortaan war aniga aqal ay kireen maayo aqal ii kiray aqalkii buu ii kireeyay maxaad meesha ka qabanaysaa halkan ma iska degay ma kaliga halkan may iskuulkii baan tagay iskuulkii waan soo qoray show iskuulkani waa Catholic iskuul caadi ma aha anigu waxaan moodayay iskuul public ah waan eegay iskuulka xaafadda igu dhow waa ka wallahi kaasad u lugayn karaysaa baan isiriyay kii baan soo qoray principalka baa yidhi abaame wuu dhintay hooyada meeday way dhimatay meesha baa wala yaa kula jooga cidna adeeraysa waa ka meesha baa loo sii yeerayo aniga markaan waxay ka dhaadhacsan wadaa lagu dhigi jiray Carabaha in Yahuudda iyo Kristanka dad xun weeyo cadaawad bay noo hayaano waa dad marka waan soo ururinaya iskuulka marka uu soo dhaweey waxa la igu ballamiyay marka fatherki kaniisada ninkii iskuulku waa Catholic oday marka baadariya meesha jooga sax odaygan baadari dadka subaxdii wuu na tukiyaa waxaan ka soo koranaya markaas in the name of God aan ka soo waana tukinaya waan wada kacayna meesha baa lagu ballamiyay odaygii marka lunch time ka asagan u taga marka dhowr cisho taga ku anigu librarians waxaan iska tagaya cafeteria ayaa waxa iskuulku 1200 arday baa ku jira iskuul weyn weey cafeteria mar Allah ya marka laga soo baxo ayaa miiskaygi sidii kacbada ayaa sida aniga la igu doofaafay where are you from Somalia where is Somalia carruurtana waa carruur beeralaya beerta aabahood bay ku dhasheen beerahaas ay ku dhasheen samarkiina wax ka shaqeeyaan beeraha inta kalena iskuulkaas ka dhigtaan adduunkan way ka xilxiran yihiin Maraykan bay ka yaqaanaan where is Somalia Africa where in Africa san maapka soo qaadayo dadkii markaa Soomaaliya u sharaxa qaar ba koonaya ma ku taaban karaa inta saxa marka ma waxay fiirnayaan in kalarkaaga in waxaan soo guurayo gacantooda soo raacay ina soo raacay waa lagu taaban ajiib dad baa oranaya war waxaan TV-ga waa laga arkaa qofna kala duway arkeen meelaha marmaraya ama laakiin qof ardayo meeshii la joogo ee kii ugu horeeyay madooba dhex fadhisan noqday sanad walba intaasoo arday baa ka baxday iskuulka
waan wada eega gidaaradan wada eega ku sawiran yihiin qof madoob kuma jiro luqadii Soomaaliga halkii bay wali igu aasantay carabigaygi waa tan iminka Ingiriisi baa de waan ku subaxdii waan ku hadlaya galabtii waan ku hadlaya habeenkii waan ku seexdaa saddexda luqadood markaa ida meel buu ii yaala mar dambe markaa aan dadkii soo dhex galay markii high schoolka dhameeyay aan markaa reer yeeshay aan ayaa la yidhi war ninkan waaba Soomaali show markaas aad kaniisadda tagto oo Catholic aad iskuul ahaan meesha u tagto gormaa ogaatay in waxaan ay Catholic tahay oo iskuul fiican aysan ahayn horta runtii haddaan runta ku sheego shaki baa diinta islaamka laga geliyay aniga baa diinta inaan ka baxo ku dhawaaday bismillah waayo doorta ninkan igu horeeyay wadanka markii aan soo galay waa kii war qolomaad anigu raaga isku reer manihin marka waan booday ninkan waa kii anigu Jamaican baa ninkan Soomaaliga ila eeka waan sii diiday markaa anoo taasi igu yaro qofulan tahay ayaa ayagii markaa soo dhaweyn fiican aad ka heshay si wanaagsan ta ii soo dhaweeyeen ayaa subaxdii ninkan baadariga baa lagu ballamiyay markan ka soo baxay iskuulkana kaniisad gurigayga ku agtaala ayaa lagu ballamiyo kaniisad ay qaadaba halkaas waxa lagu soo akhriyaa marka dad ma tagayna guriga lagu yimaada sax lagu akhriyaa markii baadariga lagu ballamiyay adiga iyo baadarigaas maxaa idin dhex maray oo sheeka ama baadarigi waanu sheekaysan jiray aad baan u jeclaa runtii nin wanaagsan buu ahaa wuu soo dhaweeyo wuu caawin jirayo markaasa ana salaada waxaan bilaabay runtii anoo yar xitaa salaadan dagaal baan u bilowno reerka annagu Sacuudiga annagoo degan waxaanu ahayn suufnimo adag bay haysteen reerku marka inaan tukano oo quraanka akhrisanay waxaan oran jiray haddaad quraanka dhammaysid intaanad 40 ka gaadhin uu ku jiiraya wuu dhaqan jira moogta marka quraanka ma waxaan u haysanay cagaf waalan oo intay ku jiidho diinta baad ka baxaysid oo waalanaysid subhanallah markaan masaajidka galay ayaan arkay dhalinyaro quraanka akhriyayso oo iga yaryaro qaariga waaweyno mana wala marka quraanka ma ku dhagay anoo quraanka haysta ta Mareykanka Canada la diray marka salaada waan iska tukan jiray ninkii baadariga marka si wanaagsan buu soo dhaweeyay inuu xumaynin marka diinta aad haysato waa tii islaamka ma fahmi asagu marka maxaa markii dhammaan sheekaysan maxaad Soomaaliya maxaa belief garaysantina aaminsantiin wallahi annagu muslimiin baan oh you go to Makkah saha Makkah wan u tukana qibladii adigu ninkii kan kaniisada watani imanaysa kana waa kan subaxdii ugu akhriyaya marka waaba de markan ka soo baxo shifti kalaan soo gala farm kaniisada ku jiraa marka maalin anoo iska fadhiya ayaa galaas macallinkii baa naga habsaamay waxa yimi baadarigii baa la yidhi daba asagu meeshii macallinka ka galo baadarigan marka waxaan u haystaa dawlad masaajidka imaamka idinku halka Nairobi de Sheikh Umar kale ama Sheikh kale oo de wadaad baan u haystaa la ixtiraamo mar allaali markuu soo galay wax isleey bilow dariskii bilow ayay yaryarkii ku bilaabeen dagaal diintani waa qalad aabaha iyo hooyaday way isnicaybihiin isma furi karaan diintana waa kalluunka maxaanu cuni hilibka maxaanu cuni weyna jumcaha adugu wadaadku ma dagaal lagu bilaabo aniga marka diinta aniga bay ugu sii duxaysaa diinta moogta ilaa waatana waji wanaagsan baa la tusoo jacayl iyo maxabad iyo soo dhaweys iyo hadiyada iyo ayaa laga dhigay kabaar lay keenaa maryaa lay keenaa Kristus gaadid baa lay keenaa hooyo abal noqon ana ina yar baan oo iska miskiina markaasana waniyo diintan kuwii u dhashay bay ka soo taagan yihiin haadiga kugu sii wada ilaahay markaa wuxuu sabab ka dhigay
wiigi ku xigay macallimad waxaanoo dhigi jirtaa waxay tidhi qof warooba waxaad doontid ka qor dooro subject ma waxaad ka hadlaysaa africa ma waxaad ka hadlaysaa asia ma waxaad ka hadlaysaa taatuugan la ismarmariyo ma waxaad ka hadlaysaa waxaad doontid kasaan idhi tana maxaad ka hadashaa maanta markaasaan idhi say tidhi maxaad adigu doonaysaa saan waxaan doonayaa inaan ka hadlo marka waxaan idhi anaa kuu sheegaya waan ka khajilay yararkii moogta anaa kuu sheegaya waxaana laga baxo markiina laga baxay ayaan ku I want to speak about Jesus in Islam inuu ciise jiro islaamku diinta islaamka waxay ciise ka qabto ayaan ka hadlayaa you have that very interesting yeah I'm sitting ciise saan idhi ha that is very interesting bay ku tiri ka soo qor haye jimcihii baan ku dhacay bas magaaladii Toronto aan ku ogaa masaajido annaka masaajido madihin muslimiinooma joogto ramadaanka waxaanu beriga 19 saacadii muujista ayaanu soo jiray bas baan masjid hado jaamici mosque baan marka ka daadeg masjidkii bookstore-kii salaad al-casr baanu tukanay ninkii baan daba galay marka bookstore-ka iibinayay albaabkii markuu sidaa u furay halkaa wajhada waxa soo yaala buug yaro greena oo manaa dhowr boqol oo page ay ku qorantay Jesus in Islam ma sha Allah intii aan dal qortay oo aan xuruf ka bedel ka qoyaan baba waan spam adiinankii baan soo qaatay waan tiigsaday baskan ku soo dhacay weekend-kii oo dhan waxaan ka qoray kuma copy gareeday ilaan wax kala garan maayo kuma copy gareeday markay gacantii daashay ayaan u geeyay markaasay ii yeedhay secretary tanbaa aaminsantiin soo muslimku canka ayadii markaa ii khushuuday markaasay bay siisay boqol bay igu siisay waxaa markaa عجيب وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق marka waxaan u fiirsaday wadaadkii dabaadarigii meesha joogay ee subaxdana tukinayay ayaa hablaha yar buu khawsa hablaha yar yar ee marka anigu am observing waan eegay moogtay markii hore dad waxa indhaha shacaba iga saaraa oo indhaha ninkan waxaan arkay wanaagiisa markii arkay asagiina duulaan baa lagu qaaday diintaydii markaa gabadhani igu yara dhiri gelisay odaygii markaa wax maan arkay odaygii hablihii ku leh hablo marka saddex ayay xidhan karaan mara yaro gaaban oo dee markay foorarsato city yani labayk allahuma labayk iyo mara yaroo jilbaha u joogta iyo surwaal odaygu markaa inanta marada tanuurad yar warka weeye moogtay inanta tanuurada jilbaha gaarsiisan ama surwaalka xidhan wuxuu ku yidhahdaa waa samare maxaa iska cadibteen kamarada gaaban xidhanna nice just buu ku yidhahdaa anuu markaa waxaa isu kay qaban waayey dee wadaad masaajid jooga waxaa lagu yaqaanay hablaha xishooda is astura jilbaabka madax ilaa iyo mijin ma jirto had inanta yar xijaabka dhaldhalaaliya waxa inaga daa cadarka makeupka dee wadaad ka dagaalamayaan arki jiray wadaadkana waxa buu leeyahay tabarrujkii qaawinaanti la isqaawinayay taasoo asagu markaa suuq u haya adugu markaasaan soo laabtay saani wallahi diintani ulukaad ilaahay markaas soo iga soo celiyay waxa leeyahay markaa inaan meeshii baanu ka bilownay dacwo oo sheekadii isbedesho marka adugu waa sheeko dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu halkaas nagu badbaadiyey dabcan waxaan rajaynayaa inaan marar kale iyadoo dhammaystiran aan bogi doono laakiin waqtiga daraadiis hadda ma noo dhammaystiraysa waa sheeko aad cajiib u ah bay noo ahayd sheekh saciid caalamka in badan oo kamid aad martaa waad safar badan tahay kolley dacwada maasha allah heerar badan baad ilaahay kaa gaarsiiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin safarkaagan nairobi aad ku soo gaartay bal nooga warbixi
safarkani waa qaraabo qansax hay dad ahal baa iga jooga marka ahalka iyo dad waan fara badan oo wanaagsan oo nisbaranay ayaa jooga walaaladayda marka waa ziyaara dadkii ahalkii iyo dee dadkii aanu isku baranay masaajka dad fara badan oo masaajkan isku baranaa jira aad u fara badan oo runtii maxabata fillah iyo cilaaqa walaaltinimo ay naga dhex abuurantay marka kuwaasaan soo noqnoqda marka dabcan marar horaa timid haddii calaaqa idan ka dhex abuurantay ramadaantii hore ayay sheekadu ii bilaabantay ramadaantaana waxaan u imi ziyaaro ahliya markii dambena walaaladii sheekh imaamka masaajidka harligam sheekh maxamuud oo kale iyo inama fara badan oo kale oo dacwadda ku xidhan iyo ayaa raggaasaan u imaan sheekh waxaad martay wadamo badan dad badan Soomaalida way ku jecel yihiin meel bay kugu soo dhaweeyaan dadkayga waan jecel meel waxaan joogay iskuulka Don Bosco oo Sheekh Cabdirasaaq Jiir uu ka yahay mas'uulka oo aad booqatay oo gabdhihii meesha joogay iyo carruurta dhalinyarada ay aad ku sugi laayeen oo muxaadarooyin cajiib ah ma sha Allah aad u qabatay marka waxaan rabay inaan su'aal ka weydiiyo maadaama North American in badan aad jirtay Carabaha aad jirtay Soomaalidina ay kala firxatay adduunka dacaladiisa bal kala duwanaanshaha u dhaxaysa Soomaalida North America iyo Soomaalidan aad aragtay ee ama aad ku aragtay Afrika dabcan in horta Afrika dawaba waa Kenya ma dhawaytaan tagay in Hargeysan gaaray in Ramadaantii hore ka bacdi in muddo gaabana waan joogay mana wiigi 10 cisho baan soo joogay in horta waxa u dhaxeeya shaac weyn baa u dhaxeeya dadka jooga Canada iyo North America iyo North Europe runtii waxay haayeen dad in aad iyo aad ugu tiirsan waxaan ay dawladdu bixiso macaawinaad waxaan la raado caydhan iyo in ama shubkan iyo wax bisha loogu soo shubo food stamp aha waxaan Mareykanka food stamp marka Canada waxaa la raado welfare Ingiriis waxaa la raado social service bay ka yiraahdaan in taasa aad dadka wali dadka waaweyn intooda badani runtii waxay kalifteen inay soo saarto generation fara badan oo ayagu hammi dheer oo weyn aan lahayn wali xagga inamada habluhu si wanaagsan bay u socdaan meel badan in waxaan ku arkay marka Kenya oo kale Kenya ka hadli kara Kenya kale waxaan ku arkay in dadka jooga wadad in doonina shaqaysta way jiraan dad fara badan oo baahi saaran tahay laakiin dad haragoonaya in haddana dawladda warsanaya ayaa laga yaabaa dadka qurbayna ku badan yihiin halkan laakiin waa qof baahan ama qof ganacsi iyo tijaarad eriyanayo oo dadaalaya marka waxaan arkaa markan labadii isu eegay waxaabad mooda dadkii Kenya xaggan jooga inay runtii naga fiican yihiin oo hadday wadankii gaari karaan wadankii waa kan hadday wax yar ay sameystaan meelo fara badan ayagii baa isku filaaday الحاجة الاختراع عرفتها الموقت مركي ماشي ده حاجة دي تيماد ويكو قصبصة صح إن أنكو حق قف قاشون يا مجر هدول هذا الشقة ما هي الدورة ده مشارة وقريسة هديت مشارة كده ما تو عيدا صوشو بس إن هدو عيد دورة ده كده كبحناسة مركا إنه قفكو يكتو حبكم معها هل كان لكن ده كفاح بالوجرة كفاحاسة فرنتي شرفنا أي كتيرته إن ميل ونكسنا لقى قاعدة لنا عمرك الدعوة كورم كوا حاجة يكوين إن ده هل كان ويدون فوضى الإسلام وتشوكته شيخ مركا كينيا اللي يدين إيجو وهذا الإسلام وتشوكته ساجدادي واميل والبا حجابك واميل والبا نقابك واميل والبا إن أد يا أد أيوة أدكتي إن الأركتيد قبر صومالي حجاب كينيا وأدكتي إن أنا كحاجة شيخ إلهي سبحانه وتعالى أنت سو هذا يوم وياني دي وعرو ير ولقو أبابيي إن حرية المرأة إن قبر يسحريسه وحجاب كان وياهي قيود يو حركة لقو ساتين يو حرية دي تقدم كيدي هورماريستي دي لقا ساتين يو مركا إن أنت أيضا بيسو حيسته إن يسحريسي هدي حتى حجابك حدانا حجاب كان ده جلبابك أسطوران معها إن وجهنا قرفر بدرنا عن كاسيان دنبابين
laakiin xijaab dhaldhalaal leh oo qurqurux leh oo dee yara mayda isku dhajisan oo inanta walba ka sawiraya ayaa laga yaabaa inay u jajaban yihiin in jilbaab dee jilbaabka qur-aanku sheegay ama cabdullaahi ibnu cabbaas uu tafsiirta ku sheego oo kale ma aha in marka diin ahaan timaado nicmad baa ku jirta gartay nicmad weyn gartay waxaad hadday tacarabowday waxaad tiri hablaha iyo ragga markaad labadooda laftigooda comparison ku samaysay dibadda waxaad tiri hablahaas ii roon oo wax bartay si kastaba hablahaas wax bartay waxa ayaamahan dambe lagu tuhmaa in ay soomaalida ka faanayaan oo soo xoogaa aad moodid inay soomaalida ka faanayaan taasna ay keentay inay ajnabi guursadaanba marka aad ba ayaamahan looga hadlaa in ajnabiga ay gabdhihii soomaalida aad u guursadeen kuwa saddex wax soo post gareeyeen waa arkayo we don't like farxis ayagoo leh soomaalida ka wado marka mada tirud horta su'aal ba meesha timaad yaa taala odhanaysa inamadii waa kun aflixi waaye hablihii horta maxay u aflixeen in ciladii waxa weeye waa hooyooyinka inamadii waxay u fashilmeenna waa hooyooyinkii hablihii waxay u aflixeenna waa hooyooyinkii dhaqankeenna waxaa ka mid a in la yidhaahdo in inanta la ilaaliyo inanka la yidhahdo waa sidaa meel walba ka soo bixi doonaa waa nine meel walba ka soo dhici doonaa iska daaya islaamihii taasaa ku qufulan inantii markaa way ilaalinaysaa xijaabkeeda yay la socotaa telefoonkeeda maqsinka combyuterkeeday baadhaysaa sariirta furaashkay rogaysaa telefoonkeeday baadhaysaa inanka waxaa leedahay inanka markaa naga tag iska daaya meel walba ka soo dhici doonaa odaygii markuu isaado inankii qabo islaantii oo wagar sidata oo dagaal doonaysa ayaa odaygii dabadda dhigaysa ama asagaan dhalaye ama adiga dabadda bacdaan kuu dhigi ama si edeblaad maqsinkaa ugu jiri waxaa meesha noo jooga rag waaweyn oo 33 jira oo islaantu quraacda iyo qadada iyo cashadaba u samayso sariirtana loo goglo shaqana aan doonaynin iskuulna aan ku jirin in kala hayninna oo fara badan waxaana odaygiina guriga laga eriyey wuxuu leeyahay anigu markaan intaa aan leekaa dee waan ku qabayo carruur baynu lahayna kan baynu lahayna asaga maxaa suuriyey inantii laakiin islaamtu way ka daba shaqaysa inan habluhu way ka jilicsan yihiin inamada iskuul bay ka daba tagtaa in jaamacadii bay ka daba tagtaa inantii markaa waa la dhisay maxaa soo baxay marka waxaa soo baxay rag tooraro dee dibi oo halkaa taagtaagano aad moodid dee baarqabkaa nin baarqab la dhufaanay halkaa joogo ayuu aad moodaa iyo hablo educated hablo fashilmana way jiraan laakiin waa minority-ga inamo najaxana way jira laakiin waa minority-ga hablihii marka way isla han weyn jaamacaddii bay ka soo baxeen shaqo wanaagsan bay hayaan way diin bay leeyihiin inamadii laakiin maaha isku level inantii marka maxay arkaysaa mid yaro hindiya mid yaro bakistaniya mid yaro caraboo dee isku darajad ay yihiin ayadii afartii inamada ee masaajidka jooga ee diinta lahaa ee aflaxayna markiiba waa lala booday inantana ma doonsiinay gabadhii labaad tii saddexaad tii afaraad ay noqoto xataa xitaa ay iyadu raalli ka tahayn inta badan hablo raalli bay ka yihiin islaamaa raalli ka ahayn islaamaa musiiba oo odhanaysa macnuu intaa kugu soo tabcayay ayaad midab kugu labeynaya ma jirto marka meeshii clash baa ka yimi hablihii marka dee marra waad canaananaysa waxaad leedahay inan soomaaliyeed baa tahay inamadeennan kan iska guurso oo iska hayahay iska dhabdhaba oo iska dee halkan inoo hay marra waad u garaabaysaa waxaad leedahay dee inanti way isla hanweyntay way isla dumarkuna waxaa caado u ah markay meel gaadhaan nin ka hooseeya ma eegaan nin ka hooseeya waa caado dumarka gaal iyo muslim iyo hindi iyo chinese ha noqdaan sheekh mustafa haruma waa nin xakiima mogta waa nin aad u xakiima marka wuxuu walba u fiirsada buy
wuxuu yidhi gabadhu buu yidhi markay boqorad noqoto ninka maxaa lagu magacaaba dee waa waxba magac male laakiin ninku markuu boqor noqdo waxaa la waa queen waa boqoradii maraykanka ninku markuu madaxweyne uu noqdo waa first lady ka waran gabadhiyo first lady ninka maxaa la odhanaya dee waa darduurka meeshaas ka maraya waa nothing gabadhu markay education yeelato hadday dhakhtarnimay gaadho hadday master samayso hadday bachelor qaato nin la mida mooyaane inay nin ka hooseeya ay wadaanta u tuurtay soo qaado way ku adagtay ninku asagoo PhD haysta ayuu midar ka soo kaxaysanay reer miyiga tuuladii reerkooda intuu tago kama qasna asaga dumarku marka way adagi inay hoos u noqdaan tiina waa human psychology ma wax yani meeshana clash baa dhahay habli marka islaamii waxay ku hayaan xakamay ku hayaan society dhinaca kale ka jiidanaysa in ayagii hamigoodii iyo dee meesha isla taagnaayeen meel laakiin maxaa waana inanta Soomaaliya runtii waxa u fiican horta dee qofka nabiga sallallahu alayhi wasallam kala cunsureeyo la kala saaro la kala cunsureeyo ma wanaagsana man ida ataakum kama fi sunan tirmidhi صحال الباني وحول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق قفك الدين تيسا يا أخلاق ديسا أرالكتين وقورية إن الله قورية هبلها وية لكن ماشي وحشرة يعني الرغبة حاجة إن أنت دي ما ينين صومالي دو قرصدو وأفقرانيسي وهدي حدو اللي يسكرلو عودة خيريه أي سهر فارسان كريان مسو واحد دي قف هدي وإن أنت وصول رباحو أهد من الله رأي مالد أمرتي أنا تقرأني مركا والد كينا مشكلة داسة كل عين مركا ماشي واحد يقول ترى دلما نعم أوكي شيخ واحد شيرو قربها هذا مثلا experience بدنا وتصامرتي هذه اللي افتكرها واحد شيرو إن وجاب وين ودحية generation كيرير على أرضي ذا يقولي بقى ذاتك scholars كشيخ يعشق علماء المساجد كا من المرأة أنا قاعد شو فاهمين صالح مزاجك waxaa ka imaama sheekh aan af Soomaaliga fahmayn carruurtan af Soomaaliga inay maxaadarooyin wax ku dhageystaan way ku adagta ma rabaan hadda مثلا la marti qaado dadka English ku hadlo tusaale ama adiga ama Khalid Yaasiin Abu Usama Al-Dhahabi dadka noocaas مثلا مزاجك it will be packed wuxuu u buuxsamayaa maxaa ka galay hadii sheekhyada Soomaaliya sheekha ugu weyn loo keenana dad waaweyn oo odayaal inay soo fariistaan moogay dhalinyaro inay soo jabaan waa suuragal ma marka gaabkaas generationka u dhaxeeya dadka yaryar iyo culimada sidee loo xalin karaa samida kale culimadu laftirkoodu soo ma muuqato ama ma qalmato inay English speakers abuuraan haday tahay see loo abuuraa horta in taad ku dhufatay arab horta taas waa kelmad waa waaqic runtii waana waaqic mariiro oo runtii yara aad u xun oo wada damqaya in mustaqbalkuna dee waa dhalinyarada odayaashan in weliba dadkan dee qurbaha joogan ka hadlaynaa odayaashan in jooga masaajidada fadhiya iyo islaamani horta diintooda loo biqi maayo diintooda u biqi maysid sax oo xitaa waxay doonaan ha noqdaan way gahayreen waxbay ku gahayreen waxna way ku weynaadeen marka waa geedka gahayrayo dee xitaa micdama ma qalloocin karayso carruurtan curdinka ah ee biyaha ee kulba sida la doono loo sameyn karo ayaa daruuri inaynu mustaqbalkooda ka talino wadaadada Soomaaliyeedna in anigu ma oranayo ha ku hadlaan Ingiriisi laakiin waxa leeyahay haday qurbaha joogan wadanka ay joogan afkooda ku hadlaan haday Norway joogan Norwegian wayna ku hadlaan way carruurtii aad ka daba timi wadaado de Norwegian bay ku hadlayaan hadii ay joogan in Nairobi wayna Swahili ku hadlaan ama Ingiriisi af la isla fahmayo hadii joogan Mareykanka iyo Yurubta kalena de Ingiriisi wad ta kale jirta meeshii qura maaha language-ki wadaadkii maanta waxa looga baahan yahay inuu sidoo Facebook u shaqeeyo systemka Facebook inay bartaan Twitterka inay bartaan in aflaamta
ka socota anu malihii faasiq noqo oo filgal ma waxaan leeyahay waxa jirta iminka wax walba waa ku diyaar waad ogaan kartaa aflaamta xitaa in yar bay ugu talagaleen oo yiraahdo in parents guide baa la yiraahdo carruurta yaryar iyo dadka weyn baa filinka way ka arki karaan waa in yaro dee xitaa inta inaad preview-ga inaad daawatid fikrad ka haysatid boo magaalada waxa maraya fanaaniinta carruurta ay dhageystaan ma hayso soo dhageyso maaha ilaahay wuu xaraantay laakiin ilmihii marka languageska mid tusaalan ku tusaya in yar bay hooyadii kan in yar ay hooyadii kan inanka yar wuxuu xidhay aniga marka waxa la u keenay inaan day ilmahan bal waraysto islaantii ma ogola aabihii ma ogola wax ma ogola وحرحري wax ka wadan yani ma jeclayno hada hadlo waa iska quiet oo iska xidhan yahayo halkaas uu farsanayayo yes you know kugu jawaabaya adigu marka wadaad ama ka muslix ijtimaaci وين ilmahan doorto waynu adiga ku aamina in gartaana inuu levelku ka hadlayo inaad la fahamsan tahay ilmihii markaa waxaan yara weydiiyey caynkaas waxaan ogaaday markaa inuu daawado aflaantan terror movies aflaanta maartay dad wax cunaya dad wax dilaya iyo caynka horror ay dhahdaan 6 week wax kale maan qabanaynin research ma ku sameeyay aflaanta horrorka iyo caynka iyo magacyadii ma soo xafiday wixii ma soo sameeyay yarkii baa lay keenay aflaantii wuxuu aktaradii aflaamtii magacyadii ka imika socda kii ugu horeeyay wixii oo dhan baan yarkii yara horta waan aamusin kari way oo waanga yarkii marka arrimuhu ii sheegtay waxa kamid ah uu ku aaminay si wanaagsan buu ii aaminay laba arrimood buu ii sheegtay marka wuxuu yiri in horta anigu waxaan ahay gay luuti baan khaniis baan yani subhanallah in هي marka dad ka boodid oo isxiraya mar labaad waaya ta kalena ilaahayna ma ba aaminsani wala igu qasbayay ilaahayna ma ba jiro waxaan noqotay marka labada tiibaan xalleeyaa daba waxaan xalleeyaa in luutinimada iyo khaniisnimada mise ilaahay jiritaankiisa baan abaara waxaan noqotay marka inaan baltan xumaantan iyo macsiyadani inaan barka inoo dhigo bal aflaamtii lagu soo celi mawduuci marka waan dismiss garay tan ilaahay iyo tan kaleba aflaantii baan ku noqon aflaantii baan ka hadlinay aflaantii marka waxaan ku soo talaalay jirista ilaahay dadka wax cunaya iyo ma maranaysa inaan meel halkii baan ku xidhnay inankii marka horta markuu 3-4 wiiga dambe ilaahay wuu soo aaminay إلهي وآمن تضبوي كم بعدنا وحيوانيش وأنا كشك سنة هي خنيسني مدني وحنا إن كصوب أيام دونية إلهي وحو قدر إن كي قدر دم ويولي وحن دونية مدك بعد إن دي قرتي إن تزكية وحنا بلاقرنا يا جامعة إسلامية مدينة قلية جامعة المدينة قلية ما شاء الله إلهي تاسو قدر markii yarka Soomaali buna waa Soomaali marka waxaan uga jeedaa wadaadku marka waliba ku qurbaha jooga dabada jooga shakhsiyaadka iyo taxliil nafsigan ilmahan qurbaha ku soo karay waa inuu ogaada gaabka u dhaxeeya anuu wadaad baan ahayo halkaas ma sha Allah waan kala furaya waan isu meherinayaa in gartana waan galaya min dhaxalkana waan qaybinaya halkaana duruus waan ka jeedinaya kitaabkan from page ila page waan dhameynaya waa arin aad u wanaagsan laakiin dhalinyaradii imka day mustaqbalkeeni weey mustaqbalkeeni marka diinu mustaqbalkeeni aynu dambas ka saaro wayno dhamaatay berito waxa kaaga imanaya Yurub iyo Mareykan iyo waxaan qaarin Ilaahay aaminsaneen qaar luutinimada ku jira oo diin u haysta qaar in hablo ankaas xitaa hablo waanka ayagoo midashaha cabisa bay wala qaba in la qaba kale anigu in rag waan ka baxo xagga dumarkan oo beeray igu ogaada caadi hablihi marka wix caadi marka wadaadadani
haddii wixii aanay diiniyan ku xalleyn karaynin oo ilmihii iyo shakhsiyaaddiisii iyo wixii aan xalili karaynin oo furfuri karaynin de markaa mustaqbal madow bay naga horeeya sheekh tusaale Minneapolis baan wax badan waxaan la shaqeeyay qaybaha dugsiyada iyo taxfiidyada weliba waxaa jirta in quraanka kaliya ay carruurtu xifdiyaan aynan garanaynin macnihii waad yaabaysaa marka quraanka akhrinaya xadda ku istaagaysa laakiin macnihii ma garanayo haddaad dabcan inaad la sheekaysana waa sida aad u sheegtay qofka uusan aaminin wuxuu ugu jawaabaa I don't know hadduu wax weydiiyo yaha u dhaho fahmi waayana never mind صح never mind ma raba inuu ugu cesho because waxaa aaminsan yahay inuusan waxaan fahmi karin qofkan uuna ka dhaqaaqa aniga waa la sheekaystaa waxaan u raaxataa Mall of America kuwa badan waxay soo daawadaan inaan arko waxaa jiro gabdho Soomaaliyeed oo Minneapolis degan oo guriga markay ka soo baxayaan jilbaabo ku soo baxo kadibna Mall of Eid oo kale Eid hadda waa soo dhowday jilbaab uga soo bixi doonaan iyo labis qurux badan hoostan waxay ka qabaan surwaalo iyo wax noocaas laakarka la gelin doonaa dharkaas kadibna Mall of America maanta waxa lagu wareegayaa qaawani aabihi ma oga meelay jirto hooyadii ma oga meelay jirto laakiin jilbaab baa lagu soo baxay allahna asturo waxyaalo badan noocaas jiro gaabka ka jiro culimada iyo generationka dhexdooda baa ka jira hadana waalidiinta iyo carruurta dhexdooda oo suxuniga tirigiisaan iyo waxyaalaha uu suubinayo dhan aysan waaridku fahansaneyn umana sheegi kartid gabadhaas hadda tiraado maanta waa dagaal adiga dagaal ku raacay adigu dagaal ku raacay waalidiintaas maxaad kula dardaarmi lahayd sadugsiyada sidee ay u fahmi karaan quraankan ay akhrinayaan ciyaalku because hadda marka qaala akadabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman lawidi madha kuntum ta'malun hasameynaysin waxay ku jawaabaan mar waqa al qawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiqun marka dadaaran macallimiinta dugsiga manhajka islaami ah oo fiican oo qurbaha loogu talagalay sidee loo dejin karaa laftirkiisa kaasoo quraanka xifdintiisii iyo isku keenaysa macnihii inuu fahmo iyo macaanka dhadhanka waxaan waraystay wiilal yar yar waxay ii sheegeen waxay dhaheen quraankan la akhrinayo macnihiisana ma naqaano diinta macaankeedana maba dhadhamino culimadina waxay ku egtahay masaajida in badan oo su'aal ka dhacayana wax badan waxaad ku aragtay meelaha inay istaagsan moolkina ma jiro culimo inta soo baxdo tabliiqa saaso kuwii tabliiq ahana badankood waa la radiyay wax sabab jira awgood waxyaalaha isu keenbal ma galina maanta laakiin in horta quraanku diintu waa 5 qaybood taa la yiraahdo hawl yareeyo waa quraanka iyo culumtiisa صح يا عقيدة يا علوم تدا يحكوا سابسنا إلهي يا أسماء وصفاتك يا حديثك يا فقهك يا دس يا تاريخ مثل علوم تيس الدرجات قرآنكم مركا ميلو كسي بلاد ما يوحفتك إن قالت إنه سمينا وحوي وحين وحي سنة المها دو قرآن كي حفظي إنه درجات قاري دينتي أينو هاي سنة حسنا وقرأ وسلان كان علمي قال سلان كان سلم العلم وحبده وجوه الرئيسة وحلو بهاي مركنا المها لوسي سوسيو سلان حبده الله بعد يتصدحات يأتى أفراد عنكم وحمركة تصدحات يأتى أفراد وحسوق جلسة تفسيرتي عربي دي إن وحيابه يردن أسباب النزول كي ناسخ والمنسوخي علوم القرآن كي يردن أي سوق جليا وذا دون وحي أباهيا إن عرفت إن يوارد كبا إن أنت سوقر لجو كوبينه إن المه أنت السادة لوس يرى إن هذا ملك جارو إن وذا ددنا فرنتي إن وذا دول بحسين هذا المحا فدات صوص هارتي واجب كاك ود جدتي حسنا حقيقة ما وسيدا أترد علمي القرآن كي كمثل الحمار يحمل أسفارا وكالعيسى في البيداء سمعت قال مركا شيء كذا وعلة ده إن وحتي مركا أرنتي واردك تا وداتك أي أسجنا هايسته ووايك قدرينهن واردك وحيو هايستان حبله دين ودا مروين أيهين إن مدنا وحيو هايستان إن يهين إن ما ودا دين ما ضربوا الله يقانو الشرف إلهينا وأجي لين يردني ماشي مراني ملاك العام والدك قل لي سمركا سم بكم عمي كتيرايو وحنا مغلي مايو وحنا أركي مايو وحنا ما كهاد ليو
horta aabihi hadduu hadduuba afkaa lagu intooda badan isagaaba isaga cirka loola kacaya islaamihiina ma doonayaan inay intooda badan horta islaamo fara badan waa yani waa fara badan ba wanaagsan baa jira laakiin qaar badan baa qudhu doonin waxba ka maqlaan in maxaa nasiixada tii aan waadada siiyo kale weeye waalidku waa inuu gabadh waxay ku tiri jazaha allah khayr inantaydu waxay damacday inay Facebook account furato furabaari anna mid markaa furtay way tiri Somaad garan that was great Twitter baan doonaa account samaysta anna mid markaa samaystay waxa walay samaysta waan la garanay waan la socdaa in caruurtii markaa waalid iyo macallinba mas'alada ka haysa wuxuu ilmihi u haysta mushada ka haysta waxa weeye ilmuhu wuxuu u haystaa inaanay labadani fahamsanayn oo sidaa tiri hadaad mar labada maxaa tiri never mind bu koodis ku soconay never mind wana kelmad aad ayaga innaka never mind waxaanu haysanaa oo waxba kama jiraan iska daa ayaga laakiin meel bay kaga taalaa jiddo haduu koodada never mind ogsoono ilmahani inaan ku aaminsanay boorta inuu ku haysto inaad ka dambaysid intaasoo generation waxa uu leeyahay waa waray baada yani maxaan soo daalinay kulliba ima fahmayo marka never mind uu ka soconaya asagaas ka wadanaya ayagiiba marka dhalinyarada muftiis isu noqday ayagiiba cilmiga kala badasha ayagiiba fataawgiisa siiya ayagiiba isna saxadeeya ayagiiba way waxay u haystaan macallinkan masaajidka jooga iyo waalidku labaduba inay useless yihiin labaduba hadhow way baran doonaan markay balanbaliya bay hoof ay gaadhaan meel fog ka soo noqdaan way garan doonaan laakiin inta hore waxay u haystaan labaduba ay useless ay yihiin waxa loo baahan yahay marka waalid tahay ilmuhu marbu ku yahay ilmo marra waa ku walaal marra waa ku saaxiib waa maraaxil waa darajaat marka inaad adiguna la koobcadid aad la kortid ayaa loo baahan yahay oo aragtid in ilmihi meel gaadhayo haddii marka aad astaama ka aragtid ilmahani inuu dee ka sii siibanayo wadiiqii loogu talagalay dee marka xalku waxa weeye inaad adiguna aad soo kaxaysid oo meel ay diinteedu ay aamin ku noqoto ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Soomaaliya meel dee u caqli celin karta in la keeno caruurti laakiin in la yiraahdo iskuul ba jaamacad ba ka soo baxaysayo shahaad bay qaadanaysayo hadhow bay shaqaynaysayo raka wax taraysa dee waaruna way sameyn doontaa min naaxiya dunya laakiin marka aakhiradoodii iyo eegtid mustaqbalkooda way u dhamaatay marka waalidka waxaan leeyahay ilmaha marka aragtid in intii astaantii ugu horeysay uu iska soo taago diyaarada soo saar Afrika kan meel diintiisu ay aamin ku tahay ama caraba ha noqoto ama Asia ha noqoto ama ha noqoto Philippine ama meel diintu ay xitaa maray gudiisa yani wees ka dhaanta in Ingiriiska qofka degan in مثلا tuulooyin iyo qofka degan in Birmingham isku mid maaha way Birmingham waa wada muslim وكان مركا أيدي قلنا كلبا وحاجة عن كده ما تنتخ الكاس ما تنوع إن شاء الله أنت مركا لأنه ولا كل ما إنه أدب أو ما تصنتعي وقتك عن سيسي يلا صانه ولا بقى قلب تاعي إن النلا فريسة ما يجزاكم الله خير ما سنتين إن شاء الله